gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee xarunta gobolka Saaxil Marwaroode Axmed Yaasiin oo maanta shir jaraa'id ku qabatay xafiiska uu xisbigaasi ku leeyahay magaalada Berbera ayaa dhalisay socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ku marayo gobolada dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland qaar kamid ah waxaana kamid ah hadaladeedii sidan gobolkan iyo safarkii uu madaxweynuhu ku gaala bixinayay gobolada dalka inaan kaga hadlo madaxweynuhu wuxuu safar dheer ku gaala bixiyay dalka oo dhan majoritigiisii gobolada dalka oo dhan uu maray laakiin sameelba siduu uu maray oo wada arkaya laakiin meelba siduu u maray waa taatan jiraayad ku qabanaya in aan ka hadlo madaxweynuhu wuxuu safarkiisa ka soo bilaabay inuu ka baxo halkaas oo uu maro awdal ka soo bilaabo inuu maxay toolay xeebta soo maro saaxil markii yimi ama uu jiida saaxil soo galay waxa uu tusay gobolka saaxil inaan u soconin laakiin wadadu kaga soo dhacday maritaanka laakiin aan u soconin waayo madaxweynaha gobolka saaxil xukuumadda maanta madaxweyne Siiraanya haysto dad baa ugu jira wasiiro ay leeyihiin muu wadan taasina waxa weyn taariifadii gobolka meesha kama muuqan muu wadan xildhibaanadii baarlamaanka gobolka ugu jiray muu wadan kuwii guurtida ugu jiray muu arag sidii ay dawladuhu ahaayeen Soomaaliland waxa ku dhinsatay waa la yaqaanay muu arag odayaashii cidna kala muu hadlin wuxuu ka hadlay iyo cid uu la hadlay oo saaxilina ma jirto taasi waxay keentay su'aal badan iyo guux badan oo gobolka saaxil dadweynaha ku nool ay leeyihiin marka waxaan garan weynay cid Berbera uga wakiilo madaxweynaha waxay madaxweynaha u sheegay dadka wala matar habaabinaya dawladana wala matar habaabinaya been baa loo sheegay shirar raafa oo sawirnayo oo dad maxasayo dad maxay tahay dhaqaalahoodii inta laga xakameeyay bilaa amal laga dhigay ayaa looreeyay baadhi tunta oo halkan isugu yimaada war dadkan waxay u baahan yihiin uma baahna ee ta imika sameynaysa iyo facaayirkan kulmiye sameynayo anagu waxaan u aragnaa sakaraadkii bahaya may faanta waxaan leenahay sakaraad dhameystaan sidoo kalena waxa ay Marwarooda ka hadashay markab kuwa xoolaha u qaada dalalka Carabta oo magaciisa la yiraahdo Tayba oo xoolo ku soo celiyay dekada caalamiga ah ee Berbera taasi oo ku dhalishay maxjarka Al-Jaabir inuu ku guuldaraystay daweyntii xoolahaasi mar labaad waxa kamid ah hadaladeedii sidan wakisayay waxa kala aan ka hadlaynaa madaxweynaha deewaaniga sheego wada kaga soo dhacday isagoo saaxil ka hadlin waa ka wadada bariga ka dhacay xambadana ku jirto markii hore xagga waa loo tirinay may fahanti laakiin waxa leenahay wadada waa baabuurta kalaba wayna dhexmaraan wadada Berbera way soo martaa wixii burco socday wixii bariga socdaa way dhexmaraan geela la maalaana uu qululaayo geela waxaan ugu tagnay anagoo ka shaqeynaya noogu yimaadeen geelashi karuura iyo kaloolay ka cabayeen xeebta igu yimaadeen aniga may fahanti oo geel la maalaana ma noqdo oo geel uu qulula wadaduna magaalooyinka way dhexmartaa geel jiruuna uu soo gaaray waxaan soo sheegayaa shaqooyinkiina macasharkan Berbera oo kale maanta marka baa la soo celiyay xoolaha markabkii xoolaha lama baarin Brussels laga helay baa khasaaraha inta laga yaa qaba ee dadka lagu riday soo maaha checkinka dawladda iyo maxay hatolay macsharada ay maanta xurtada ku haystaan ee cid ay doonaan u irmaaneeyeen dadkii agdegana ay ku baqtiyayaan siigadu intay sanka ka gasay samboor iyo ay ku qufayeen carruurtii reeday ahwada laga xilay isku soo wada duubo hadalkan Roode Axmed Yaasiin ayaa ku soo beegmaya iyada oo xaflado gaar ah lagu qabanayo Berbera taasi oo lagu taageerayo socdaalka madaxweynuhu ku marayo qaar kamid ah dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland وعبد الرحمن محمد عيقة TV عالمي رويال مقالة بربرة.